waxaan ku sugannahay magaalada barakeysan ee Maka al-Mukarrama halkan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u yimid laba shir oo muhiim ah kii hore wuxuu ahaa shirkii Jaamacadda Carabta ee degdega ahaa ee uu isugu yeeray Boqor Salmaan bin Cabdilcaziz kan haatan la soo gabagabeeyay wuxuu ahaa kii ururka iskaashiga Islaamka shirkan waxaa diiradda lagu saaray runtii amuur fara badan oo dalalka ku bahoobay ururkan taabanayay amnigooda iyo horumarkooda waxaana laga soo saaray baaq wada jir ah oo lagu magac daray baaqa Maka kaasoo ahmiyadiisu ay ahayd xoojinta midnimada iyo wada jirka shucuubta iyo dowladaha ururka iskaashiga Islaamka ku midaysan waxaa kaloo jiray oo lagu cambaareeyay loogana hadlay ururada argagixisada ah iyo falalka argagixisnimada ah in meel looga soo wada jeesto Soomaaliyana ahmiyad gaar ah shirkan runtii u lahaa intii uu socdayna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kulamo gaar la qaatay madax iyo amiiro iyo boqorro shirka ka soo qayb galay waxaana runtii kulamadii xalay uu galay ugu muhiimsanaa kii uu la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan madaxweynaha iyo dhaxal sugaha waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Sacuudiga iyo Soomaaliya iyo sidii dowladda Sacuudigu ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dowlad dhisidda iyo garab istaagga shacabka iyo dowladda Soomaaliya shirkan iyo kii ka horeeyay madaxweynaha waxa ku weheliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad wasiir dowlaha madaxtooyada xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fuursade